sidaasay marka hore u socdaan. Saddexda mid ee fulinta waxaa oday u ah bariis cabdiqaadir bariis oo u ah oday. waxaa dhaqaalaha u haya waa saddexda iyaga dhanba waa madaxa guddiga fulinta iyo secretary-ga ama xoghayaha isla markaa mas-uulka dacwadada ah iyo dhaqaalay saddexdaas ka koobay. saddexdooda waxa weeyaan ay kala yihiin saaxiin sheegay cabdiqaadir axmed bariise oo ilaahay khayraas iyo runtii aad u ammaanay qabadkiisii iyo hawsha masaajidka qabtay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro, iyo ninka yidhaahdo sheekh cabdilcasiis jibriil cabdi waa xoghayaha guddiga fulinta isla markaana ah mas-uulka dacwada. isagaa ah mas-uulka dacwada wixii masaajidka ka soconayo oo dhan shiddo dacwa ama duruus laga jeedinayo waa inay guddiga wato isagaana mas-uulaada. ninka saddexaad waxa weeyaan cabdi maxamed ducaale cabdideere oo dhaqaalahayaa. saddexdaa nina waa saddex nin ee fulin ahaan masaajidkaas shaqadiisa joogtada ah ugu taagan. qaabismeedkaas insha allahu tacaala baan doonaynaa in bal haddana fatra kale wakti aynu ku socono insha allahu tacala masaajidka wixdiisu ay kusii socoto laysuna soo ururiyo waxyaalihii kala baahsanaa. intaa kadib waxaa iyadana mudanka ku sugan guddiga labadiisa gole oo fulinta iyo guddiga guud ah ayaa mas-uulka ah masjidka iyo dhammaan oo waa in iyaga looga dambeeyo wax kasta oo ku saabsan masjidka iyo taladiisa, sida matalan shaqaalayn, shaqo ka qaadin, tacliinta fasalada, muxuu xafiisyada masaajidka raacsan, wax kastoo masaajidka ku saabsan guddigaas armaankiisa waa in iyaga looga wixii iyaga kusoo fulaa waa in aan laga hormaano. waxaa xiga wixii khilaaf ah ee soo baxa waxaa go-aanka xalintiisa iska leh guddiga fulinta, laakiin wixii ay xal u waayaan waxay la wadaagayaan golaha guud kaasoo go-aankiisu noqonayo kama dambays. bimacnaa guddiga fulinta saddexda nin ah waa wixii khilaafka inay xaliyaan isku day ukeesa ku soo wixii iyaga ka weynaada raggoodii kale ila wadaagayaa la iskula noqonaya. golahooda sagaalka ama ciddii ka joogsa wixii go-aanay soo saaraan go-aankaasi waa kala dambaysa. meel kale odayaala loo raadiyey muxuu ahaay maya, sababta waxa way wax walba meel ku dhamaaday u leeyahay. hadduu wuxuu gadaal ka furay oo dhamaad u saaray khilaafka marka haddii dawladdu hoos iska khilaaf say usuu socoto madaxweynaha madaxweynuhu go-aanka dambaysa yeesho ma kasii soconaysa ama jiha waa inay go-aanka dambaysa leedahay. laakiin hadday noqoto inay wareegto oo waxyaalaha khilaafka keeno marka kama dambaysto wax nas lama khilaafay, aayad qur-aanna lama khilaafay, xadiidna lama khilaafay. waa masaalix oo la ilaalinayo. masaalixdu marka waxay ku roon tahay way leedahay jiho go-aanka kama dambaysta iskale ayagaas sagaalka iskale. laakiin haddii waxaa halkaa ku jira laakiin haddii khilaafku u dhaxeeyo culimada masjidka isla markaana ku saabsan yahay masaa'il diini ah waa in aniga la iisoo gudbiyo si aan aniga iyo culimadu xal uga wada gaarno. yani haddii masaa'il diini iyo culimadu isku qorto oo khilaafku ku saabsan yahay masaa'il diini oo culimadu ku mudansan yihiin aniga markaa meelfaan ku leeyahay meeshaasi intaan soo reegtay intaas afrikaan maalin awood loo dhiibo ya wax walba haddaan iska bixin maxay soo haray marka intaasaan soo reebay maxay khilaafka culimada dhexdooda haddii masaa'il ku saabsan culimaanta dhexaaya oo iyagii la wadaagi oo la miqaafi oo la saldhigi kartay u baahan marka wixii masaa'il diiniya ku saabsan culimada dhexdooda halkaasaan iyagu ku xidhay. haddayna masaa'il diiniya ku saabsan maamul tahay
darsigani meesha kuma habboonay oo ku habboonay halka yaa geliyay video masaladaasi masaa'il diiniya ma masaa'il diiniya masaa'il diiniya waxa weeyaan siday diintu qabtaa iyo sida loo sidana saxa iyo sidana sax ma taas waa masaa'il diiniya laakiin wixii maamul ku saabsan guddigaas kale ama culimaha qayb halka ah samaysan kara qodobkani waxa weeye waa in dhammaan la ilaaliyo laguna dhaqmo ee hoosaadka u yaalla masjidka oo loogu talagalay in lagu kala socdo yani ee hoosaad baa la socda go-aamada waagii horena waan dejinay haddana waxbaan ka beddelay kan hoosaadku waxa weeyaan guddiyadani nidaamkay ku kala socon lahaayeen baa ku qornay cid walba awoodday leedahay xiliyaday fadhiisanayso qaabkay ku qaadanayso oo xeer ah loo deji marka xeerkaas waa nidaam la doonayo in la ilaaliyo gaar ahaan markay maslaxa ku taagan dad muslimiina ay ku heshiiyeen haddii marka uusan shareeca ku hor imaanin ilaalintiisa waa laazim laakin shareecadu sideedaba kala dambayn bay qabtaa kala dambayn wax bini aadam ka dhexeeyo oo kala dambaynaya ima soconay allah tabaaraka watacaala laba ruux nin iyo xaaskiisa oo caruurta meesha imaaninta waa laba ruux sooma waxbaa ka dhexeeya waa sinantihin lama dhig alla الرجال قوامون على النساء كل وين كل طبيعي لو أن حدين نظام يكون كل طبيعي أو وصل يكون الإسلام ما يكون سيدو كلامي صلى الله عليه وسلم وفي صدق روح يتكبر أن هذا استغفار صدق روح وصبر فليؤمن أحدهم يكون أمير حكيم صدق روح وصبر أمير لا يسمع لا تهديل ويوم نظام الإماري كالطبيعي هديل ويوم فقط فوضى بدل marka waa in muxuu ahaay nidaamka iyo xeerka hadda meelaha qaladaadka kale waxaa ka mid ah qoraalkii aan ka tagnay ayaaban marar badan kuwa noqonaysa meelaha laisku qabtay qaar ka mid a meeshay ku qoran cidda awoodda iskale iyo sida loo kalayo laakiin laguma wadaabnay maalinkaa kitaabalaha kudoodisay marka waa in xeerka lagu laafo oo dadba xeerka kuqabsadaan oo muslimuuna calaa xuquuqihim sidaasna ku hagaagi karaan waxaa qodob iga ah dadweynaha kale ee aan maamulka ku jirin waa inay dugsiga ku kaalmeeyaan wax walba oo ka qayb qaadanaya wadajir ismaqalka iyo horumarinta masjid oo ay noqdaan sida nabigu sheegay sal alay wasalam furayaasha khayrka ee ayna noqonin furayaasha sharka waxaa ka wada bimacnaa waxa weeyaan dadweynuhu maamulka sida isku garab taagaan way ku qaban karaan nimankaa dadkaysaale hadda aan magacawnay hal nin oo raalika ma jiro inuu meesha maalinsi jiro mana rabaan sababta waxa weeyaan culays baad haysaa walow masjid iyo mas-uuliyaddiisa iyo wadidiisu ay tahay waxyaalaha ilaahay lagu dhawaado waxyaalaha ugu fiican ay ka mid haddana in markuu duleeya adiga maxaa dadka ula qanjacnay maxaa maradayda ugu sameeya maxaa maradayda xag iyo muxuu ahay ee qodaxda iyo xananku qabsanay banaanku maray banaankagaa maraya waa kukursanahay ganacsigaa haysta waxaa jaa uweydi inaad dad iska qabsano lagu buubuubo nin walba halkaasu taagay daybiyaa qabanaya saas daraaddeed baa waxaan leeyahay inaan gaarin heer inteena akhyaarta ay ka cararaan masaajidka hortiisa qabtaan wayna gaari karaan meelo badan oo sidan aan soo maray baa jira oo yurub ka mid ahoo masaajidii iyo goobihii markay buuq ka bixi waayeen in ama intii khayrka lahayd ee wanaagga lagu gelay ka cararaan kuwaasi markay ka cararaan waxay noqonaysaa fawdo iyo nin aan istaahilin ninka mas-uuliyadda ka cararaya baana shareecadu qabtaa in la qabto ninka shareecada raadinaya xilka raadinaya xilmiga ilaysi qali mu'adin hano mu'adin hano imaam hano masjid mas-uuliyaddiisa hano shiga kasi weyn hano ninka raadinaya ku dagaalamaya lama siiyo maxaa yeelay ilaahayna ugu kaalmayn maayo waa midda labaade mas-uuliyad ku raadinayo ku ordaya xilkasma mas-uuliyaddiisa baansanay nin xilkas aan ahayna xil loo radiyo
markay ku yartahay inuu ku daray ku socdo sidaas daraaddeed mas-uuliyad waxaa fahmaya lalaga raadsadaa ilaahayna uu kaamay ninka ka carray been ii sheeg maayo raggaa hadda waxay soo istaageen maalintii aan niyo toban niyo laga qabo magaalada waxaa jirta dad akhyaara hawshii laba saac oo kaamilan qaar ka midayso oo ay diideen ilaa laba habeen oo tagtay qaabkii aan xallin lahaa intaan waayey hurdada ku taagan marka qaarkood 8 saac 2 saac baan gaadhaya siyaasa ku hay arrintan gorgurta sidaas daraaddeed waxaan leeyahay inaan gaadhin heer dadka tadxiyada iyo dadaalka masaajidka uu bixinaya xoolo laguma qabo xoolo meesha laguma qabo xoolahoodii bay ku bixinayaan waqtigoodii bay ku bixinayaan dadaalkoodii bay ku bixinayaan saacay tahay adigii lagu adeegayo masaajidka ka faa'iidaysanaya haddii lagaa waayo in lagaa noqdo ya beriso laga carrama